habeenkan caawa ah magaalada Wajaale oo ku taala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya waxa ka daay roobab waaweyn oo la xadle oo geysay khasaare naf iyo maalba leh waxa ku geeriyooday dad tiradoodu gaaraysa ilaa 2 qof waxa dumay guryo badan waxa ilaa hadda maqan leerkii korontada magaalada Wajaale oo kala socodsiin lahaa hawlaha magaaladaasi dadweynaha ayaa ku soo xoomay goobaha ay khasaaruhu ka dhaceen waxaana halkaas maanta aan ku suganahay magaalada Wajaale oo ku taala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya dhinaca toga waxa la soo xidhay kabaha waaweyn ee dhiirida iyo loogu talagalay biyaha sidoo kalena waxa la shidanayaa tooshashka oo kor u kacay qiimahoodu maadaama oo maanta habeenkan caawa ah magaalada Wajaale aanay jirin Mukhtaar Nuux Ibraahim Honkable TV degmada tog Wajaale xaaladda magaalada Wajaale iyo leexlaanta maanta xaaladda maanta naaysataa waxa weeye roobka oo raxmada oo daaday waxaana magaalada ay xidhatay kabaha dhaadheer waana iska dhiirdaas sadarkiisa sidaas oo waliba leexlaana jirto sidaas oo magaalada aad u weyn ee hadday Itoobiya tahay hadday waddan kasta tahay laga soo iibiyo waxa kala iibsiga ay yaallo ayaa si wax loo kala iibsadaa bayna jirno leexlaan ay tahay waayahay leexlaantaasi dareen intee leeg bi ku soo kordhisay degmada tog Wajaale dadkaas oo dhan ee urursan waxaad arkaysaa inay shaqadooda kala hayeen leexlaanta awgeed bay imka u taagan yihiin intuu leerku soo dhacay la sugayaa shaqada marka waxa weeyaan leexlaantaas dad intee leeg bay dhaawacay ugu soo geystay iyo dhimasho wallahi maanta khasaare baan baa jira waliba carruur baa dhimatay baa laba carruur midna kooma ku jira midna uu dhintay baa la lahaa خوفة بامبولا روبك مركا تشنجلا بدنا وقاضي حاركي ويقول الله يركو مركا لبع عروري قبصة ما لا هذيك محل كشقيسة أنا وحاجة شقية حمل مقلاس كأنه الباني كورن عاوة واحد كحماشو الشقاء ماشي ما شقاء بالليل الله يركي بمتشري بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنو وصعنا ساعدني رحمة إلهي لسي oo waxyeello gaarsiisay iskuuladii iyo magaalada Wajaale qayba ka mid sida wararka la iigu sheegayo aan ku helayno ayaanu xilligan u soconaa waxaan hadaba halkan baa uga dirayaa bahda waxbarashada oo wasiirku madaxda ka yahay in dugsigii dhexe ee Xasan Cawke dabayshu ay ka rogtay halka kaanjigu ku kala qaybsama qaybta bariga u jeeda oo dhan fasalladii ofiska laga gaarsiiyay ilaa ka u dambeeya ay dabayshii ka rogtay jiingadii ayaan halkan ku cadaynaynaa oo hadii eeba idankayga leeyahay aan doonaynaa si degdeg ah in masiibada dabiiciga ah Ilaahay keenay ee raxmadda dhex socotay wax looga qaban lahaa dadka ay waxyeeladu ka gaadheen Ilaahay ha uga gargaaraan leenahay imika halkan waxaan ku soo maray gaari taxi yar oo ku jira maalkii garanday oo halkan dhex fadhiya laba dumar ay ku dhaawaceen dhaafado ay qabeen oo halkan baad ku sii mari doontaan biyuhu dhex jiifa wadadu xagga bari uga booday xaggan uu soo jeeday wadadu bariga uga booday laba dumar ku yar dhaawac fudud ku soo gaaray meesha nimcada taalla iyo biyaha fadhiyay lafahaagaas aad uga baqaysaa ma mari karaysid in aad loo digtoonaado Ilaahay wixii xanuunkii iyo masiibadii meeshan taalina raxmadda iyo nimcada ay naga raraan Ilaahay weydiisanayna oo dib inoogu soo celisho biyoodkii balaayada iyo masiibadii waad mahadsantiin baan dhamaanteen salaamu alaykum wa ta'ala Allah naxariisto kul nafsi daqiiqat al-maut nafkasta damaali tagaytay إلهي نحرسته وحي كلا داوعنا إلهي يا عفمات دقات سيو رابكو دباتوين بوكيستي خسارة بدن لكن ورحمة سوغني waxaan ku suganahay degmada Wajaale ee xadka u dhaxeeya Itoobiya Soomaaliland caawa halkan waxa la socodsiinaya magaalada leedka ka go'an tooshashka aad loo socodsiinaya iyo kabaha dhaadheer cidaan kabaha dhaadheer isteen magaalada ma dhex socoto